soo dhawo saaxiibayaal maanta waxaan iibada sii socon socda xalqadii saddexaad xalqadana waa xalqadii ugu dambeysay seasonka inta aanan bilaab waxaan ka codsanaa muuqaalka laga inoo saarto hadii wax cusubtaan nagu soo biir intaas kadib inoo bilaabo xalqadeena Yemu ayaa si dhumaalaysi ah u arkay dhacdadaas oo dhan kadib sikadiis ayaan dib ugu laabanaynaa waqtigii hore waagii ay Sunyu ay dhiganaysay dugsiga sare waxay maalin maalmaha kamid ah ku dhex seexatay baska iyadoo wadata buuggeeda xasuus qorka waqtigaas qof fadhiyay gadaasheeda wuxuu ahaa Yemu intii baska lagu jiro oo dhan wuxuu si degan u daawanayay iyadoo hurda markii uu madaxeeda ku dhubaaday inuu ku dhaco daaqada baska wuxuu si tartiib ah meesha u dhigay gacantiisa si uu uga ilaaliyo dhaawac kasoo gaaraya madaxa wuxuu ku hayay madaxeeda hoostiisa muddo dhan si ay ugu seexato si raaxo leh markii ay Sunyu baska ka degtay Yemu wuxuu si dhumaalaysi buug xasuus qorkeeda ugu celiyay boortadeeda wuxuuna sii daawanayay iyadoo tagaysa soo dhoola cadeynaya markaan dib ugu soo laabano waqtiga hadda la joogo Siyun waxay Yemu u kaxaysay imtixaanka jilaannimo ee doorka filimada sababtoo ah waxay u aragtay mustaqbalka waxayna ogaatay in fursadda ninkan gebi ahaanba wax ka bedeli karto maadaama ay Siyun aragtay mustaqbalka filimka uu guul weyn gaari doono sababta kaliya Yemu ugu dhawaatana waxay dhana ku qasabtay inuu filimkaas ka mid noqdo laakiin Yemu ayaa xoogaa horeeray wuxuuna weydiiyaa miyaan loo baahnay inaan hadda joogo goobta duubista ee Hyunsu Siyun waxay u sheegtay in hadda ay tahay si buuxda inay diiradda u saaraan imtixaankan kaliya intii lagu guda jiray imtixaanka garsoorayaasha waxay weydiiyeen Yemu hal su'aal taasoo ahayd maxaa xiiseysaa wuxuu si daacad ugu jawaabay inuu jecel yahay garaacista biyaanada markii uu taas sheegay kadib wuxuu xataa garaacay biyaano taasoo isla markii cajisay qof walba oo qolka joogay isla mar ahaantaana waxaa arkaynaa Siyun oo wictaan ka heshay Hyunsun wuxuuna weydiiyey waxa ay hadda qabanayso Siyun waxay caadi ugu jawaabtay inay hadda kaliya eegayso sawirada isigii Haan ay wada galeen dhan kale Haan ayaa usoo jeestay dhanka Hyunsun waxayna weydiisay inuu necab yahay la qaadashada waqtiga iyada maadaama uu mar walba ku mashquulsan yahay taleefankiisa kadib waxay si qeyraro u sheegtay inay rabto in heestooda ay noqoto mid ugu bandhiga fiican markii ay bilowday inay fadhiisatay Hyunsun wuxuu si degan ugu jawaabay inuu isaguna waxaas rabo kadib Haan waxay weydiisay inay kulmi karaan duubista kadib asana wuu ka ogolaaday dhan kale Yemu wuxuu si farxad leh ugu sheegay Sunyu inuu imtixaankiisa ku guuleystay uuna dareemaya in hore loo doortay wuxuuna xataa si dhab ah ugu mahadceliyay Siyun maadaama iyada meesha keentay kadib markay banaanka soo baxeen Siyun waxay aragtaa sawirkaasi ku wada jira Haan iyo Hyunsu markay si fiican u fiirisay waxay aragtaa dharka ay qabaan inay ahayd xasuusteeda ay arkaysa mustaqbalka isla daqiiqadii ay taas ogaatay Siyun way naxday waxayna si degdeg ah usoo kaxaysay gaariga iyadoo soo kaxaynaysa Yemu kadib waxaa arkaynaa Hyunsun iyo Haan oo wada tababaranaya heestooda markuu Hyunsun bilaabay inuu baxo kadib Haan ayaa sikadiisa u joojisay waxayna si tartiib ugu soo dhawaatay wejigiisa iyadoo ku dhow inay dhunkato laakiin isla daqiiqadaas saxda ah Siyun ayaa sikadiisa meesha u timid waxayna soo dhex gashay wax kasta iyadoo aad u shoogsan waxayna isla markaas ka joojisay ficilkii si kastaba ahaatee ilbras kadib waxaa ogaaneynaa in waxaanay dhan ay qayb ka ahaayeen film duubista markay ogaatay xaaladda si qaldan inay u fahantay Siyun aad ayay xushato waxayna bilowday dadka dhan inay raali geliso kadib Yemu wuxuu Sunyu weydiiyey inay u raacdo casho intii ay wada hadlayeen wuxuu sikadiisa u weydiiyey wax aan laga filaynin wuxuuna ku dhahay ma dhab baa inaad mustaqbalka arki karto kadib waxaa arkaynaa labadooda oo wada fadhiyaan gaariga dhexdiisa iyadoo Yemu uu weydiinayo su'aalo kasta wuxuuna weydiiyey inay tahay geesi qarsoon iyo inay joojin karto musiibooyinka waaweyn markan Yemu waxay qaratay ugu dambeyntii xaqiiqada waxayna tiri haa runtii mustaqbalka waa arki karaa kadib waxaan soo galaynaa muuqaal hore oo muujinaya in xataa iyada Sun ay hore u ogeyd awoodda layaabka leh tani kadib waxaa arkaynaa miskaanka oo si dhab ah ula hadlaysa Siyun waxayna u sheegtay markay kadib daawatay muuqaalkii habeenkii inay u muuqato Siyun inay joojiso Hyunsu iyo Haan sababo dareenkeeda gaarka ah halkii ay taasi noqon lahayd sababo shaqo laakiin Siyun isla markaaba way difirtay waxayna si adag u sheegtay inaynan jirin wax arrimo shaqsi oo meesha ku jira ugu dambeyntii miskaanka waxay go'aansatay in iska rumaysato dhan kale Yemu wuxuu Hyunsun siinaya talo wuxuuna u sheegay in qofka u baahan yahay inuu ogaado meesha wax xariiqad u jiidayo nolosha ha noqoto qoobka ciyaar ama xiriir taas kadib Hyunsun wuxuu si toos ah ula hadlay Siyun wuxuuna u sharaxay inuu isaga iyo Haan aanay dhab ahaantii is dhunkan habeenkii horena waxay kaliya u istaageen si isku dhow sababtaasna waxaa keentay duubista laakiin Siyun waxay si qabow ugu jawaabtay inaynay arrintaas dan ka lahayn kadib waxay si toos ah u weydiisay inuu jecel yahay Haan iyo in kale Hyunsun wuxuu si kaftan ugu jawaabay inaanan u sheegi doonin sababtoo haddii u sheego waxay ka joojin doontaa danaynta badan kadib si fudud ayuu u fariistay isagoo ka tagay iyadoo aan hadal u reebin kadib waxaa arkaynaa Siyun iyo Yemu oo waqti wada qaadanaya iyagoo garaacaya biyaanada labadoodana waxay u muuqataa kuwo faraxsan oo ku raaxaysanaya biyaanada kadib Yemu wuxuu guriga ku daawanayay muuqaalkii biyaanada ay wada duubeen laakiin isagoo daawayn Hyunsun oo meesha maraya arkay isagoo xiiseynaya Hyunsun wuxuu weydiiyey heesta sababtoo heestan oo kale weligiis muu maqleen Yemu wuxuu si cad ugu sharaxay heestan inay soo saareen asaga iyo Siyun weliba maantadan maqalka tani waxay ka dhigtay in wejigiisu isbedelo
isla markaas wuxuu bilaabay heesta asagoo dhegeysanaya inuu dhaleeceeyo. Maalinta xigtay Sinyon waxay ka walwalsan tahay sida Yinwu uu qaadan doono maalintiisa fasaxa maadaama aanu lahayn wax jadwal shaqo ah. Sidaas darteed Yinwu wuxuu ku martaqaaday inay u raacdo bandhig muusig, laakiin isla daqiiqadaas waxaa soo muuqday Hyunsun wuxuuna ku dhahay ma nii raaci karaa meesha u socotaan. Si kastaba haatee Yinwu wuxuu si degdeg ah u bilaabay inuu marmarsiyoodo asagoo dhahay shaqo ayaa ii taala. Halkaasna waxaa ku fahmay Yinwu inuu si dad badan u diidayo inuu kusoo biiro Hyunsu. Maalinta xigtay waxaa arkaynaa Tio iyo Hyunsu oo guriga joogo, waxayna arkeen Yinwu oo isdiyaarinaya weliba soo gashanaa jaakadiisa ugu jeclaa. Waxayna weydiiyeen maanta inuu u socdo balan ama date. Yinwuna wuxuu u sheegay haa gabar inuu la kulmi rabo. Kadib waxay weydiiyeen gabar qofkay tahay, balse intaanu u sheegin waa lasoo wacaa waxaana soo wacday Siyon. Tiona wuxuu ku dhahaa Siyon maa balandeed la aadaysaa. Yinwuna wuxuu ku jawaabaa haa. Isla markii waxaa arkaynaa Hyunsu wejigiisa inuu isbedelayo isagoo weliba masiirsan. Kadib markii uu Yinwu la kulmay Siyon wuxuu siiyey hadiyad yar, wuxuuna si xishood leh ugu sharxay inay jirto dalab yar taasoo ah iibso hel mid free ah. Wuxuu u keenay midkii dheeriga ahaa iyada, laakiin intii ay labadooda waqti wada qaadanayeen Hyunsu wuxuu si weyn u wacayay Siyon nambarkeeda. Markastay taleefka qabtana wuxuu weydiinaya su'aalo bilaa macni ah. Dhab ahaantii sababta ka dambeysa waxay ahayd mid cad. Hyunsu aad ayuu u masiiray kadib markuu arkay Yinwu iyo Suo isla socdaan, markaasna wuxuu ku dhibayay wicitaan joogto ah. Isla mar ahaantaana waxaa arkaynaa Irib oo joogo meel kaloo jidka lagu nasto. Markuu gudaha kasoo baxo wuxuu ogaaday dharkiisa inay maqan yihiin, wuxuuna wacay Siyon laakiin waxay u sheegtay inuu ku qaadan doono inay imaado 2 saacadood. Kadib sikadiisa mid ka mid ah saaxiibadiisa dugsiga ayaa meesha yimid, labadoodana waxay bilaabay inay wada baashaalaan. Nasiib daro qof ayaa si dhumaalis ah muuqaal ugu duubay intii ay taasi socotay. dhan kale iyadoo Siyon ay joogto meel musqul ah, waxay sikadiisa u dhegeysataa dad u dhow kuwaasoo xamanaya iyada. Kadib markay maqashay sheekadooda si degdeg ay dibadda ugu soo baxday, waxay u maadaan Yinwu waxayna ku dhahdaa shaqa ay soo baxay sida darteed waa inay si degdeg u baxaa, waadna ku mahadsantahay intaa waqtigaaga ay siisay. dhan kale Hyunsun wuxuu sii waday inuu ka walwalo waxa ay Siyon sameynayso. kadib sikadiisa Yinwu ayaa isna meesha yimid. Hyunsun isla markaas wuxuu weydiiyey sababta u soo laabtay goor hore maadaama xataa ay saacadu gaarin 10 PM. Yinwu wuxuu si dacad u sheegay Siyon inay hesho shaqo wicitaan taasoo ku qasabtay inay baxdo. isla daqiiqadii uu maqlay Hyunsun taasi wuxuu si dhab ah ugu farxay gudaha. maalinta xigtay waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in muusiga Hyunsun loo doortay heesta rasmiga ee kooxda Seoul. kadib iyadoo Hyunsun iyo Han ay wada duubayaan heestoodii, Siyon waxay soo gashay istuudiyaha. isla daqiiqadii uu arkay iyada Hyunsun wuxuu bilaabay inuu xasuusto wax walba soo dhex maray. markaas kadib waxaa arkaynaa Yinwu oo la joogo gabar la jisha filimada, waxayna weydiisaa weligiis gabar inuu u wada date. Yinwu hadalkaas markuu maqlay wuxuu soo xasuustay mar uu taleefka Siyon uu ku dhex arkay feelka codka gitaarka ee Hyunsu usoo diray. kadib xasuus kale ayaa maskaxdiisa kusoo dhacday, halkaas oo Siyon usoo dhawaatay asaga, asna si degan uu ugu dhiibay albamkiisa ka hor intuunan aamusnaan ku kala tagin. markaan dib ugu soo laaban waqtiga hadda la joogo, Yinwu wuxuu si murug leh ugu sheegay gabadha in fursadiisa ay dhammaatay ka hor intaanu si habboon u qirin dareenkiisa. gabadha ayaa ku dhiirigelisay in isku ilaawo arrinkaas, laakiin Yinwu keliya u dhoola cadeeyey asagoo ka xun ayuuna yiri waxaa laga yaabaa inay tan qadarkayga ahayd. kadib waxaan arkaynaa waraysiyo ku socda dhammaan shaqaalaha iyo fanaaniinta shirkadda Starlight. markii ay Siyon dhamaysay waraysigeeda, Hyunsun ayaa sikadiisa ugu soo dhawaaday wuxuuna bilaabay inuu weydiiyo waqtiga ay fanaaniinta si rasmi ah u bilaabi doonaan shaqadooda. shirkadda dhexdeeda Siyon waxay u sharaxday in wax kasta ay ku xiran yihiin miskaag iyo markay si rasmi ah u xansaxiso. waxaa xiiso leh in albamka cusub ee kooxda Seoul uu soo dhawad yahay, mar dhow ayaana soo saari doonaa. kadib Hyunsun wuxuu Siyon tusay saacadda wuxuuna yiri hadda waa 11 PM, wuxuuna u sheegay in markay saacadu gaarto saqda dhexe shaqadiisa rasmiga ay bilaaban doonto. kadib sikadiisa wuxuu weydiiyey Hyunsun su'aal aan filayn Siyon haddii aan qof jeclaado ma u sheegaa. Siyon isla markaaba way naxday, waxayna weydiisay inay tani tahay kaftan ama kaamirad qarsoon uu ku duubayo, laakiin halkuu ku jawaabi lahaa Hyunsun wuxuu sikadiisa u dhunkaday iyada. kadib si degan wuxuu u sheegay dareenkiisa hadduu soo bandhigi lahay inuu ka shaqeyn lahaa intaasoo sano. isla markay saacadu dhaaftay saqda dhexe, qof walba wuxuu bilaabay inuu wada dhegeysto heesta cusub ee kooxda Seoul. dhammaantood waxay noqdeen kuwo aad u farxsan oo qiiro leh. markaas muuqaalkeena wuxuu u wareegaa 2 toddobaad kadib. heesta kooxda Seoul waxay heshay views aan inaba caadi ahayn, halka dhammaan xubnihii ay noqdeen kuwo ku mashquulsan bandhigyo iyo xayeysiisyo. sidoo kale Yinwu wuxuu ku mashquulsanaa filmaanta duubistiisa. kadib Siyon waxay timid goobta duubista si ay usoo qaado Hyunsu, Tio iyo Irib. markii ay aragtay iyadoo si adag u shaqeynaya, waxay go'aansatay xoogaho inay farxad geliso. sidaas darteeda waxay ogolaansho ka raadsatay agaasimaha wuuna ka ogolaaday. markaasna waxay si dhumaalis ugu shiday heestooda iyadoo ka shidaysa samiicadaha goobta yaalay. markii ay xubnaha maqleen heestooda, niyadooda ayaa isla markiiba hagaagtay, waxayna si xamaasad leh usii wadeen duubista iyagoo leh tamar badan. kadib iyadoo Siyon ay joogto isbitaalka, waxay daawatay barnaamij TV kaasoo ka hadlaya aragtida mustaqbalka iyo bedelida qadarka. barnaamijkaas waxay ka ogaatay wax aad u naxdin badan. markasta qof uu wax ka bedelo mustaqbalka waa inuu rumeeya wax aad u qaaliya agtiisa. maqalka tani waxay ka dhigtay mid aad u walwalsan, laakiin waxay go'aansatay wax kastoo dhaca inay garab taagnaan doonto kooxda Seoul si ay u guuleystaan. markaas muuqaalkeena wuxuu u wareegaa 2 toddobaad kadib, halkaas oo kooxda Seoul aan ogaanayn heestooda inay hesho views aad iyo aad u badan. maqalka tani Siyon waxay ka dhigtay mid aad u faraxsan, laakiin isla markaa waxay soo xasuustay barnaamij
barnaamijka TV-ga ee qadarka. Aad ayay u cabsatay maadaama wax walba sidooda hadda u socdaan qof ay weyn doonto. Waxaasna waxay yihiin ilaa hadda ma oga. Iyadoo ka fikiraysa arrinkaas qofka u horey maskaxda kusoo dhaca wuxuu noqday Hayunso. Kadib intii arrinkaas ka fikiraysa meesha waxaa imaaday Irib. Albaabka gaariga marka furtana wuxuu dhiibay taleefankiisa soo tusaya fiidiyowga laga duubo asiga gabadha. dhan kale kooxda Seoul waxay noqdeen kuwo caan ah maadaama ay sahooda uu qarxay xubno walbana goonidiisa ayuu caan u noqday. Sion waxay markaas la kulantay ninkii hadli jiray aragtida mustaqbalka waxayna weydiisay sidii awoodeeda ugu takhalusi karto maadaama laga yaabo qof muhiim inay ku weyso. Ninka wuxuu u sheegay ku mashquulka mustaqbalka inuu ku luminayo waqtiga ay hadda ku nooshahay sidaas darteed Yuu arrinkaas way ku wareertaa. Ninkana waa iskaga soo tagtaa iyadoo shirkadda soo aadaysa markaasna waxay la kulantaa maamulada Miskaan iyadoo tusaysa fiidiyowgii laga duubay Irib. Maamuladan waxay go'aansataa iskoolka inay iyada aado. Miskaanna waxay imaadaa maalinta xigta dugsiga ardayda ayayna khudbad dheer u shidaa iyadoo ka waanaysa muuqaalada falxumeed dadka ay ka duubayaan. Miskaan markay banaanka soo baxda gabadhi ayaa kasoo dabarooda waxayna ku dhahdaa ardayda markaa baxda waxay bilaabeen muuqaalada inay tagtiraan. Miskaanna waxay u jawaabtaa adii Irib ayay nii taalaataas kadib gabadha waxay ku dhahdaa waa maqlay in badan waxaa tahay maanajarada ugu fiican Soomaaliya shirkadda. Irib ayaa in badan ii ka amaanay maamuladan si kaftan ayay ku dhahdaa ma waxay u qaldisaa Sion aniga waxa ay shirkadda sii oogaysa. Markaas Irib ayaa soo bodo wuxuuna bilaabay maamulada inuu ammaano. Maamuladan waxay bilaabdaa gabadha inay siiso kaarkeeda. Sion markay ogaato maamulada inay xariso arrinta Irib way ku faraxdaa. Maalinka xiga shirkadda waxaa ka jirta xaflad taasoo ay sanad guurada tobanaad ee Starlink ama shirkadda. Sionna waxay ka warsanay Hayunso inuu Mongolia ku laaban doono. Markay la kulantana gees ay ula soo baxdaa waxayna weydiisaa sababta ugu laabanaya Mongolia balse wuxuu u sheegay inay ahayd keliya magac bandhig TV cusub. Kadib masraxa soo koro Miskaanka waxayna sheegtaa inay ka digayso xilka CEO-ga. Asxaabta meesha joogana waxay bilaabaan sawir inay galaan marka laga reebo Yunwoo sababtoo ah ku mashquulsanaa filmadiisa. Isla markaana Sion waxay aragtay mustaqbalka in xataa ay iloobi doonto kooxda Seoul. Markaas iyadii Miskaan way soo raacaan waxayna imaadaan dhankaas shirkadda. Intay Miskaan la joogtana awooddeeda ay shaqayso waxayna aragtaa mustaqbalka inay iyada noqon doonto CEO-ga shirkadda. Weliba kooxda Seoul ay intaas kusoo dadaalaysa iloobi doonto. Markaas dib waxaana lagu celiyaa 2007 halkaas oo la ogaaday in Sion iyo Hayunso ay is yaqaaneen iyagoo carruur. Season-keena YouTube Management halkaas ayuu nagu dhamaaday saaxiibayaal. Insha Allah waxaa bilaaban doonaa season cusub balse intaad soo gaarto muuqaalka inoo qurxiyo like inoo soo rada nagu subtaa nagu soo biir sidaas iyo nabadgelyo.